ururka gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq ee magaalada Berbera ayaa maanta cabasho xoogan ka muujiyay cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyay in ay sameysay xukuumadda Somaliland gaadiidleyda waaweyn ee u kala gooshay gobolada iyo degmooyinka Somaliland iyo waliba wadamada jaarka ah waxa jirta imika hadalay nagu soo baxay oo ah cashuurta in la kordhinayo gaadiidka road taxiska wadada la marayo baabuurta ay 6 biloodka mar hore waa la kordhiyay imika meel wax laga kordhiyay iyaga xoog ma kordhan shidaalka ku qaal garooba kiradii baan waligood halkii ka kicin qodobban ka hadlaya qodobka koowaad waxa weeye qodobka wadawaa ka soo baxay xukuumadda ee cashuurta ku kordhinayso xukuumaddu danteeda ka hadashay oo inuu ninku markuu culays ku yimaado wasiiriyo inuu halku wax u filayaa inuu carraday waa meesha u taala say qosaysaa waa loo doortay waa shaqadiisii taas waa taa waxaan si xukuumadda horta u sheegnaa marka hore waxaana lagu kordhinaysaa horta annaga war ma naga haysaa xukuumaddu annaga horta xukuumaddu horta war ma naga haysaa gaadiidley baan nahay kun gaari baa ka diiwaan gashan oo baawrada candamada loo yaqaan ee shaambooga ilaa tareema lagu daro kun gaari bay gaarayaan iyo kun daro wala watay kun grisbeel la socdaa waa 2,000 qof dawladdu nagu xisaabtanto hadday cod doonayso meel kale ka raadisa iyo meel aan magaranaysa waxba u taagnin annagu waxaan nahay community isku xiran kun gaari tii horeenu la liidanay mid dambe hadda la kordhiyay te waxaanu qaadan karana ma meel allaale meel wax laga saaro ma hayno saariftii ciyaalkaanu la arag marka waxa weeye te nidaam baanu doonanaa wanaagsan oo bal gaadiidkii in hoos loo eego oo wixii gaadiidku uu qaadi karo la saaro wixii aan qaadi karayna dee foolxumada ka imanaysa in laga joojiyo gaadiidka ku qarsan lahay warada nigan gaadiid la leeyahay wax la saaraya horta wuxuu hayo ma loo hubsaday wasiir hadaa tayo dawlad hadaa tayo tijaar hadaa tayo dad kale hadaa war wax ma hubsatay dhibtaanu qabno ma hubsatay qaar baa curyaamiina qaar baa dabada ku siqa qaar baa saraf lahayn qaar baa taayir lahayn qaar baa taayiradii wadada dheer ku cunay godbe qaar kood ku dhacay way rogmadeen ummada rogmada weeye warna dawladda ay uma hayso waxa naga doontaa horta waa gardar intaana labaa ku cuni waa gardar ama dadka waa gardar waxana Allah ma arrimaha intii ugu muhiimsaneedna way ka hadleen waxyaabaha jira imika ee gaadiidka imika badidoodii markay arkeen Somaliland inaan indhaheeduba gaadiidka siinaynin gaadiidka wadadii deeyay wixii sidii intii laga waramayay horta laga waran dawladdii hore ama tii riyaal ah ama tii cigaal ah ama tii ka horeysay Cabdiraxmaan ah tabe hoogayada noo karkari jirtay inaha dhibana saliidijiin iyo waxbaan anaguna iyo in ciidan ku dabooli jiray intaan istaagna markaan faaruqana imika tataala waxa weeye 10 kilomitir baa la yiri waxa la idinku korinaya cala gaari lacag 10 kilomitirna dee 12 kilomitir baa la hargeysa ee jiciir loola jirayna 4 kilomitir oo 150 ka halkaana jigjigeer ka gala halkaana kilig ka gala ayuu ka sameeyay lacagta cashuurta ee 500 shilin ah ee hargeysa uu ka ururiyay annagu gaadiidkan hadaan nahay Somaliland u xukuumadda Somaliland ee hogaamiyay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa tan iyo intii ay bulshada reer Somaliland dooratay maalinta ka dambaysa kor u qaadaysa cashuuraha kala duwan ee ay ka qaado ganacsatada Somaliland sida gaadiidleyda ganacsatada isticmaashada ka magaalada Berbera iyo waliba xoolaha ka dhoofada ka magaalada Berbera oo ah cashuur kordhintii ugu dambeysay la sameeyay waxaana jirin waliba wax cad oo ay bulshada Somaliland dareemayso imika loo qabanayo sida wadooyinka oo ah qaar aad u burbursan Mubaarak Cismaan Saciid Somsa TV Berbera